sheegay odagii naaquudihii welcome back anagsiga kaartee turaabu ka hadlay naaquuduhu maalin dhaweyd wuxuu yiri anagu hadaan reeshin saxaaq nahay ee radio bukaac inaga inoo dal leedahay in daba dhigatay babaan ku sheegaya markaad ereyga lahayd hareeraaga maadadka caqas caaqow ilan caaqa waxba ma dhaantide naaquude cali naaquude dhageyso maad eegtay ayaantaad anagska turwa ka hadlaysa hareeraaga ma aad eeginde waa lagula yaabo waa lagu qaslay adumada isaaq matala isaaq halka dhigtay bay yaaliine isaaqa kaartee turwa ku nool dhalintii wadanku baqtiga u xalaala soo kuwan wada gaajoonay qowlaladu cadaadeen halkeed isaaq uga dhigin nin u naxaya jeebkaaga iyo reerkaaga oo aqalkaaga maqsinadaada waxa ka socdaanad ogeyn naaquude war uma haysid markaas aad doonaysaa nin jiray inaad iska dhigto od maalintii dhaweyda askarta direeska loo galiyeen 5 goor baabuurka magaalada igu wareejiye adlayd nin wax kala haya sideedii marka anagu adiga iyo afarta dilaal ee adiga kula socda ee turwa doonaya siday doonaan inay ka yeelaan ku daawan maynade waan idinka qabanaynaa isaaqna waxba uma tiid isaaqna ma matashaan dhalinyaradii kaartee turwa way gaajoonayaan ee reesha xisaxaaq ciday doonaan ka soo jeedaan awal iyo garxajis iyo arab intuba cadhaday dhulka ku hayaan waa shoomeero ratreed bay ku galeen maxaa u qabatay naaquude inaad suqlayso qolqol meerto mooyaane maxaad u qabatay oo been dilaasho mooyaane soo noqo si fiican baa lagu baranay soo noqo intii hadhay baan dhamaystiraynaa marka maadaa oran ka radio bukaaca u jawaabo caaya haday cay iyo ceebi timaado waa lagu kiishi hawshaadi waa la gali filinadaadi waa la keeni musalsaladaadiina waxa laga bilaabi anagu ceeb iyo cay shaqo kuma lihin laakiin hadaad siyaasadda iyo loolanka la isku haya aad ka baxdo cali naaquude waxaan ka bilaabaynaa centre culturel français waad garanaysaa ma halka baan ka bilaabaynaa halka markaan ka bilaabnana A to Z baan ku geynaynaa taariikhdaadii oo tafatirana gacantan kaaga dhiibayna garso waad garanaysaa markaan ka hadlayo centre culturelka xaqii dambe bandaradii waad garanaysaa wixii aad ku sameyn jirtay abuse marka adigu ma hadli kartid dad baan caayna ma oran kartid ummadda masaakiinta ee reekaartee turwa ee duleysatay ee dusha ka saarantayna waan ka kicinayna waan ka rogayna dhalintii turwa matalaysay ee geesiyaasha ahaa ee damqanaya damiirka la turwa bay ku jiraan wayna taagan yihiin waana layni bedeli adiga iyo mawaantooda ma weynaatayna cilmi khatare dhubuq laysaye dhabanahays baa ku dambayn ina naala turna waxaan leeyahay adiguna imika bariyaha guuxaagaad ka dheeraysa waa la iska ka qaban waxba isaaquma tihiin dilaaliin baa tihiin danaystayaal baa tihiin ku dul nool carruurta yaryar ee masaakiinta ah ee kii hadlaba xabsiga geynaysiin idinka yeeli mayno idinkuna daawan mayno reer turwaana waxaan leeyahay ciidan iyo calanka waad u dhalateen yaa laydinka cabsin yaa shisheeye layniga dhigin waa halkii aad ku dhalateen xundurtiinu taalay waxa qof waloo reer Jabuuti xaq u leeyahay baad leedihiin bayaan laynii sheegin mayni shaqo geeyaan deynima shaqo geynayaan oo idinku awrkacsanayaan marka taa ka diida ha ka yeelina inagoo isku duuban oo mida oo reer Jabuuti waxayna dhacsanayna luflufkan iyo shixinadan etaa baraleel suuqa ku soo deysay waa isdhaafinayna dilaal bay taa baraleel waday waxa kaloo jiray ceebi ka dhacday iyo foolxumo kale ninka la yiraahdo Cabdikariin aadan sheer waan ku han weynaysay hankayagii hoos buu dhacay oo ceeb baad ka wareegtay maalin dhaweyd waxaad cayintay 330 agent comptable hada eeg 330 agent comptable baad cayintay oo salaasadii hore bisha 15keedii la bacdabayo dhulka la mariyay su'aal baan ku weydiinaya Cabdikariin waxaad tiri markaan tajaro joogo iyo markaan oboq joogo iyo markaan dakhil joogo iyo markaan cali sabiix joogo iyo markaan carta joogo waa ii mid baad tiri kugu garansani waa mid wadani baad tahay waa run waa inankii magaalada tahay waa run laakiin maxaa keenay inaad 4 ka dhigto 330 comptable inaad 4 ka dhigto maxaa keenay miyay ku indha buuxin waay mise wadani bayna ahayn ma ii sheegi kartaa su'aashaasaan kaaga fadhiyaa Caaq Ismaaciil warande waxaan ku sheegay qabyaaladu wata disaami qaybsigu sidaa ma aha waa 5 gobol iyo magaalo madaxda in loo qaybiyay ahayd in nin waloo reer Jabuuti qaybtiisa iyo saamigiisa iska dhex arkay ahayd maxaa keenay in loo badiyo reerna laga dhigo waxaan dhulkaba ahayn oo eshantiyaan laga dhigo awde aw qaliyi yibuto garak moobin bendaa idin awde nagiiba hagsarane haysale iyo maraw tahkaana hay xaagid siinik
حاجيد سينك تهكا نجيو أهيد وحرامك حرامي مالك ما حي نكسين حيسك دمكا تمهكا هاي حاجيد أفرنو سيني هي رجنا عشان كنت بصدق كيس دحك معناته بارو مرهين تنسيني كيان هاي مركا عبد كريم موضني بين أهين ما جادا إنه وقل من ما حد عقورس ده أنت على ضد وضن كون الشيء إن ترى أفر بان دي سينة يصدق يصدق عشان كنتابل ما حاسكيني إن هذا أمضي كلا كقديسو مناش يجي كرتا أدريرو بديسو ده واحد ضلك يدتكو كدومين ما حاسكيني شنطة قبل محل لوجا سوحلي واي محل امتحان لو مري واي هلاقو كلا هراء هدي عدالة دي جرتو شنطة قبل ما لقى سو قرر دلنيرada digriyadoodii la jiifta magaala madaxda ma laga soo xulo maya baad tiraaheen sidaad idinku jeceshiin baad wax u maareyseen laakiin waad ku ceebowdaydeen wadani baad tahay waa run laakiin shame you baan ku leeyahay ceeb baad ku fadhidaa sheer qabiilna waad soo xiratay de waa lagu gartay ku baranay weeyaan barasho wanaagsan Cabdi Kariim barasho wanaagsan waayo waa lagu hanweynaa waxa lagu moodaya inay umada reer Djibouti ku siman tahay laakiin de sinaantaadiiba haday sidaa noqotay maxaa ka sugnaadee waa ku fuuna xaalkaaga arrin kale falxuna service-kaaga way ka dhacday waxaad bedeshay ninkii ahaa muxuu ahaayay directeur domaine-kii baad bedeshay directeur domaine-kii markaad bedeshay waxaad geysay directeur domaine-kii waad qaaday waxaad geysay waxaad keentay nin kale aad keentay waxaad bedeshay ninkii ahaa Muumin Xuseen baad bedeshay directeurkii domainka Xuseen baad bedeshay nin kale departement kale ka keentay yaa ku xigay Xuseen ajwaangiis yu ahaa Gurad Xasan Lema de Gurad Xasan Lemiyuna wadani ahaynuuna u qalbin booskan imise sanadood buu halka joogaa maalin walba nin la dul keena maxaa dhacay il ne mérite pas ma qaban karo aqoonta male 3 sanadood buu jooga retraite buu baxayay maxaa dhacay Caaq Ismaaciil kuma indho buuxinayaan waan ogahay taa laakiin u sheeg iyaga kuwan sacabka ku tumaya ee ummadii ka haray inay kacdoonka ka qayb noqdaan u sheeg halka aad ka taagan tahay iyo falka aad la maagan tahay u sheegde tamarka ahay Gurad Xasan le 30 sano takbisatiyani kiyahay directeurinu xakimalina maxaa ka xinaana tabahsinahay mayan koksa iyo marow tahka hay Caaq Ismaaciil taxadul sin yabiri tamadin tolsin yabire gabaka aha gurahay takway tamablenuk wakaadi sinama karaacitonu ila xabo takway tabsini kableno nagib sin haysele nagib gabod sin bele benda isaabinu lafta sini tamamali tahka hay Gurad Xasan le makina sanata yani directeur adjoint angara iyo numsini tmeel ministeratak nin kaliya oo matala qoomiyada cafareed oo dhibta dhacday ka hadlay ma hayna anagu ma hayna de waa wada danaystayaal say u dhan yihiin siday u dhan yihiin jeebkooga ayay u fadhiyaan walaa iyaga walaa ku kasto la keeno hadii cafar tahay iyo hadii ciise tahay iyo hadii isaaq tahay iyo hadii samaroon tahay cid walba jeebkooda u fadhida waxa saanana haystade wadankii waxa saa ka socda marka Cabdi Kariim shame on you baan ku yiri Gurad Xasan le meesha uu qalma xaqna uu leeyahay waana wadani kolba ina yaro caruura on experience lahayn baa dul keenta la dul keena walaa adiga walaa wasiiradii hore marka ayaa ugu wacan neefba halku isdhigo ayaa lagu qalaadi weeyaan de waxa ugu wacan ibuto garak moobin iyo kooxdan de istabadidaysa ee waxbaan afar matalnaale jeebkooga u fadhida ee mutmalliqiinta munaafiqiinta soo meeran baa dadkii duleynaysa de marka Caaq Ismaaciil anu midana madaxweyne kuma oranayo afkuna inuu iga xado waan diidaa waayo waxaan u diidaa markaan waxa arkade damiirkaygu ma qaadi karo ummadii reer Djibouti oo la kala qaadayo ummadii reer Djibouti oo la isku soofeeyay waxaas maxaa ka dhalanaya soofeyn baa ka dhalanaysa colaad baa ka dhalanaysa dadkii ku kala kaxaysa de ma ka yeelna kama yeelayna hadana lagu sheegin anaa kule waa khalad ka tagay kana yeelimayna ina dhalinta reer Djibouti la kala qaado nin walba halka uu qalmo in la siiyo oo la fariisiyo ciduu doonaha ka soo jeeday taasaan anagu aaminsanahay dhalinyarada reer Djibouti shaqo la'aan ma noqonayaan shoomeerna ma ahaanayaan tartan baa lagu kala baxaya nin walba halku xaq u leeyahay uu nasiibkiisu siiyaa la hor fariisin walaa eeda walaa adeer eta barale la to proclamer company kuleli dayacan nafta saarayda ee sixirka sir mooday ee sumal haadsaneen habeen seexanayna waxa xun ku foogan waa kaade waxa soo meera ka waran Caaq Ismaaciil hadaan eedo loo ahayn iyo adeer loo ahayn lama noomeynayade way kugu cadaatay maaha de uu khatimay Cabdi Kariimna
good luck waa waxaad ka heshaan de annaga waxba naga siinina waxba naga siinina annagu waan ka kacnay fadhiga arrin kale jirta oo fool xun oo dhacday waxa dhacday nimca jaamac migil fanaanadeeni qaranka halgamaagi ciidan iyo calankan u soo halgantay ayaa waxa dhacday inay aeroboorka tagto maalin adu wiigii hore ayay tagtay in muddo imika laga joogo anu waan dhowrayay waan daba socday waxaan sugayay xaalkaasi halku ku biyo shubto waxa dhacday markay aeroboorkii tagtay inay u dan lahayd ay directeerkan maaragtay Cabdiraxmaan Cali Cabdilaahi kani aad tiraahin Vazi Franki Vazi Franki hooyadii Maryan Caynaan Allah u naxariistay iyo nimcade dad akhwaana oo walaalay ahaayeen oo macruufa habaryarnimo ugu tagaysay ballan bay lahaayeen waayahay buuri markay halkii tagtay ajido Cali Ciid nin la yiraahdo jandarana ayay u tagtay ajido Cali Ciid isagii buu la hadlay isoo daabu ka yiraahdo habaryarta hada la socdo filimka sida loo dhigayaya nimca waa la sii daayay Cabdiraxmaan way u gashay Cali Ciid wuu geeyay nimca way dhamaysatay way iska socotay Cali Ciid haddaan idin la hadlaya areebu ku jiraadii maxaa sababay Cabdiraxmaan Vazi Franki ayaa yiri sidoo nimca igu soo daaya bal munaafiqnimada inta leeg ilaahay baan idin ku dhaarshay reejibuto nala arka Cabdiraxmaan markii aad nimca u yeedhay ay ku soo gashay ma tiraahday ii soo galina iga bax ma jandaranka ka tiraahday ii soo dayn macnahaagu muxuu ka dhigan yahay Vazi Franki bal noo sheeg waxa uu ka dhigan yahay macnahaagu nimcase ma terrorist ba nimcase ma ka xaraan ba aeroboorku nimcase waa ay naagti ciidan iyo calankan u soo halgantay ma gaban mayna indhaga bidsan mayna naagti shalay lahayd dhagaxa tuuraysa markii calankan la doonayay ma marka de macnahaagu muxuu ahaa ajina Cali Ciidna muxuu u xiran yahay daada amarka siyo ii soo daayid ma de caaqis macalmiya laga waramay taama lagu sheegay laguma sheegin de aniga iga hoo hawsha aeroboorki ka dhacday waxa uu ka dagaalamayaa Vazi Franki Cabdiraxmaan wuxuu ka dagaalamayaa etaa parallel baa nimca nacda nimca haday nacda de wadanaheeda etaa parallel nimca waa dhaladkii Djibouti so what waa wadani dhalada nimca waa halgamaa u soo dhimatay ciidan iyo calankan sidee loogu ciilide caaqis Ismaaciil warkaas socda de hadaan hore weegayn maanta ogow nin dhano jandarona ajudaayana u xiran oo dambi la doonaya in loo sameeyo ku kasti oo qof wadaniya lagu arko amba lagu sawiro madambi baa loo sameyn ma noo sheegi karta caaqis Ismaaciil maxaa sababay de yarkan baa sababay Vazi Franki Cabdiraxmaan Cali Cabdilaahi daan xadaan xayir halkan fadhiya ee qolowna hayn sheeganay waa wada shabakada waxayna ahayn wada sheeganaysa dadka sanka ka galaysa ee doonaysa inay iska dhigaan maaragtay inay kala hayaan cirkiga dhulka marka waxa weeyaan ceebta iyo fool xumadaas ka socota Cabdiraxmaan ma lagu sheegay kontraagaagi 2 September buu dhamaaday jujub iyo xeer daraad ku joogtaa iyo xeer jajab iyo deediya beenbeen laakiin way dhamaanaysaa raggan eer Djibouti ee ciilaysay xuduudda ugu faanaysana waa isbaranaysiin waa isbaranaysiin haddaad moodayso inuu dalkiya dadku sida ahaanayaan oo raggan caruuraha leh ee waliba guryihii laga saaray ee guryihii waalidadoodii maanta caruurtoodii ku kala daadiyay ee lacagtoodii xalaashatay de lagu dayn maayo eer Djibouti midaad idinku leedihiin ma aha haddaad isa siiseen waa leedinka maroojin anu mar horena waan idin yiri ragga eer Djibouti xaqiina laga dhintay halka aad taaliin idinka isdhigay Cabdiraxmaan muxuu yahay mar walbaan idin sheegaa anu Vazi Franki waxba ma aha he is nothing aniga iga haweenka Cabdiraxmaan barqaygu ma gaadheen waa wallahi billahi aniga Cabdiraxmaan barqaysku ma naan gaadhneen haddaan aanu la shaqaynayo waan kala bixi lahayn si fiican baan u kala bixi lahayn ciidiyan caalankan baad u dhalateene waan iska kor qaada dulliga oo diida dulmiga rag baa la isku yahay markay runtu timaado Cabdiraxmaan wuxuu rag ku yahay de waa etaa parallelna waa cadceed dhacaysa way sii socotaa sifini way sii socotaa anaana inile way sii socotaa waa gabal dhacay habeen tagay sooma laabto weeyaan qisadoodu marka caaqis Ismaaciil waxaas dalkii ka socda markaas adiguna doonaysa inaad iskaga kaayo dhigto nin adduunka kala haya ceebtaas socotiyo fool xumada waxaas uu sameeyay nimca jaamac migil oo aeroboorka isaga waalidnimo ugu timiday ninkii u soo daayo waliba isagu amarka si ajuda Cali Ciid maanta u xiran yahay sababta uu ku xiran yahay in isaga aad weydiinta caaqis Ismaaciil waa haday tala ka go'do waan ogahay waxba kaama go'aan I know that waan ogahay 100% inaad geed ku xiran tahay laakiin de waa nasiibka horaan ku yiri waa laga hoos kacay ma it's up to you de waxaad ka yeelaadaa garan anaga shaqadayada ma laakiin waan ku sheegayna maragun baan ka dhigaynaa ragga eer Djibouti waxaan leeyahay ka kaca fadhiga xoolihiina dhacsada ciidan iyo calankan iyo agencekan inaga leh
waa hantidii wadanka waa hanti qaran Djibouti shalay ma ay sameeyeen taa baralelo to proclamé 1963 buu Faransiisku sameeyay say u yeelan karaan de waa su'aasha meesha taala ka kaca fadhiga oo dhacsada wixiina ilaahay rag buu idin ka dhigay haya yuulina uune ka kaca fadhiga oo iska kiciya vazi franki halku ka yimid ku noqday isaga yaqaan meeshu ka yimiday waxa kale jirood ka arki doontiin fiidiyoga ninkii maartay Abubakar Umar Xadi qorqoriye hooyo baayay waxaad ka arki doontiin Montreal ayuu ka iibsaday bandarad chateau maartay ku taala Codenage chateau de Sel baa la ilaaha bâtiment buu ku dhex yaala appartement giisu waa Codenage waad arki doontiin le bien malaki ila Montreal bayaacayaan kooxda Montreal iyo Ottawa iyo meel walba joogtay reer Djibouti waxaan sheegayaa fadhiga ka kaca inoo tiriya hantida la soo galinayo dawladda Justin Trudeau wargaliya anagu email waan u dirnay waan baraarujinay dawladii Canada diyaar bay tahay idinka marka meesha jooga ee goob joogayaasha ah ee marxaatiga ka ah hantideeni oo la soo guray war ka kaca fadhigooda farta ku fiiqa oo loo yara qabta xoolaha la inoo dhiciyo xoolaha la inoo dhiciyo fadhiga ka kaca aqal kale waad arki doontiin fiidiyogaad ka arki doontiin bâtiment-gaas wuu ku dhex yaala appartement-gana waa la keenay hadaan amaanada hayno waa hantidii ummadda Abubakar Umar Xadi waa ninka dakhil rarka ku furan sheegaya hooyay baayay daanax dhagayso qorqoriye waa kaade waa la keenay in ka badanna waan soo wadnaa hadaan amaanada hayno wixii dadkii lahaa ka gaajoonayaan ay ka cawlan yihiin ka aradan yihiin iyo xaafadaha kale ku camiraysiin Soomaha oo ka danaysanaysiin Djibouti la inagu dhaafi maayade la inagu dhaafi maayo Abubakar Umar Xadi adoo shalay aradan oo cagaagan iyo rarka dakhil ku furtay markaas aad doonaysaa Djibouti inaad maanta tiraa anaalo dadkii ku dhashay ka xigsato hooyay baayay iyo hooyo sheeg waxa dalkiiba ay dubinayaan eedarkaysi qorqoraya John Budeenaad eedaado ninka la yiraaho ninka John Budeena la yiraah aakhir man yaclam buu ka dhigay aday ku taala maxay naga galanaga qorqori aan baxareed ku meero we don't care laakiin anagu waxa iyaga idin kaga ma harayno qorqoriyow waan ku sheegay ilaa London baan hayna proofiyo badan oo keeni doona hadaan amaanada hayno waan keenaynaa waan soo dhigaynaa maca sawiradii baabuurada macal wax walbaan haynaa waan keenaynaa hadaan amaanada hayno detective privéena waan dirsanay lacag baa shaqaynaysa hadaad idinku hantidii ummadda ku faanaysaan oo dadkii xoolihii dadku ka gaajoodeen aad ku faanaysaan anagu dhididka iyagaan idinku daba galayna ku tala gala inaan idinka harin cirka salaan dhigta hadaad doontiin xaqan ummadda reer Djibouti baa leh dubayna waanu sheegaynaa hantida aad geysateen inay noo qabato qasab sida u dhaqsaha badan bay noo qaban dubay waa idinka dhacay ee shalayna maxkamad kale kugu dhigtay Ismaaciil 435 milyan oo dollar bay kugu leedahay maxkamadda Mareykanka dhigatay u sheeg reer Djibouti inay hadana dubay soo laba kaclaysay markaas aqli daridooda dubay bay tagayaan maal gashanayaan la socda reer Djibouti waa kaade waanad arki doontiin xaqiiqdana waan idin tusaynaa anagu waan idin horkaynaa wax kasta oo hor keenayna maqal iyo muuqaal Abubakar Umar Xadi aqalka ayaa aqalada badan waa wada keenayna taamarkan ka gudbo waxa jirta ee toolay magaaladii dakhil Quraankii buu ka gooyay nin la yiraahdo Umaru baa la yiraahdo 17 qalbi Quraankii ka gooyay dakhil war dadkii lacag ma haystaan waxaan u bixinaynaa beedaan qayb de uu diiday qosho kaga dhacay dadkii Quraankii buu ka wada gooyay waa nin aan tariima dadka masaakiintii ma lacag ba haystaan Ismaaciil ما laga sugade ilaa idinkuba Quraan ma bixisiin waa idinka daashoonaya adduunka daafeeda maraya aawayki jaamac ali geelihi aad uga dhigtay entreprise briefé jaamac ganaf wuxuu ganaf ka siiyay in wax kale u yaqaana de waa kameriyaal dheerka ku noqday ninkii shalay isagoo cawlan Djibouti yimid ee Ukraine baa jaamacada ka dhigtay in laha waligiina Djibouti iskoolka muu galin la socda de waka markaas dadkii masaakiinta ah ee dhaladka ay reer dakhil Quraanada laga goynaya oo la bac joojinaya bacsa saaraha waxaan ku sheegay Ismaaciil dalka shanta gobol iyo magaalo madaxda way ciyaysay reer dakhilna waxaan u sheegayaa Quraanka idinkaale calanka idinkaale ciidda idinkaale sidaad idinku doonaysaan haday u socon waayaan wayna dhaafayaan de macakan ay keeneen way iswada daba galayaan waxba naga begelin aan baan salaamaya oo iyaduna ayaama u hareen waxaan salaamaya xamaamadahan baarlamaanka fadhiya iyo dawladdan isku habsatay danaystaha ah ee nagu daawanaysa dhibta ee damiir laawayaasha ah salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh